السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو ونكسن صاحب يا مeel kastoo aad joogtaan waxaan jeclaystay inaan maanta caawa ama maanta idinla sheergareeyo sheekadan runtii aad ii soo jiidatay mashruuca la dagaalanka nuurka macnaheeda la dagaalanka diinteena suuban ee samaawiga ah laakiin wax lagu guuleysanaya maaha sheekada waxaa soo sheergareeyay saaxiibka Yaasiin Axmed Farax Yaasiin Axmed Olol sheekaduna waa sidan waxaan safar gaaban ku yimi magaalada London anigoo ka qayb galaya xaflad aroos ehelkaygu lahaa saddex sho markii aan joogay ayaa waxaa ila soo hadlay nin ka tirsan urur ka mid ah ururada sida qarsoon u shaqeeya waxa uu igu bilaabay maqaaxi ku taal South Kingston oo la yiraahdo Gailey's Bakery waan imid anigoo warwar yari ugu jira buu yiri oo isweydiinaya waxa uu iga rabo cabaar markii aan fadhiyay ee aan buniya macmacaan meeshii ku cunay ee aan kolba saacada hoosta ka eegayo waxaa si kadisa ii soo dul istaagay nin cad waxa uu ii sheegay in la ii soo diray oo uu ii qaadayo hodheel waan soo raacay gaarigii oo waxa uu ii keenay hodheel Rivers Park Plaza oo ku yaal bartamaha magaalada London qof baa ii sii taagnaa albaabka oo si diiran igu soo dhaweeyay hodheelka waxa uu ii kaxeeyay qol albaabkiisa ay ku qoran tahay 322 qolka markii aan galay sariirta waxaan ku dul arkay dhar madow sida suud madow shaar madow iyo laba kabood madow waan maydhay sidii la ii tilmaamay dharkii ayaan ku labistay cabaar ayaan daawaday London ay oo si toos ah ugu beegan daaqada qolka aan ku jiro waa meel ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada London dalxiisayaal badanna ay joogaan gobolku waa uu sii dhacaya anna wali waxa aan taaganahay daaqada garaac xoogan ayaa albaabka la igu tumay haddana waaba la iska soo furay anigoo yaaban ayuu igu yiri mudane waxa bilaamaysa soo dhaweyntii waan soo raacay waxaan uu fadhiisiyay miis yar oo maro madow lagu sharaxay shaqalaha dhamaantoodna dhar madow ayay ku labisan yihiin miiska waxa saaran khamri cas waraaqda sida saddex xagalka u taal oo ay ku qoran tahay welcome to brotherhood iyo sidoo kale waxa taala hees magaceedu yahay welcome to home markiiba gabadh dhar madow xiran ayaa masraxa soo fuushay waxa ay qaadaysaa heesta midhaheedu ay miiskayga ku qoran yihiin waxaana ka mid ahaa erayadeeda welcome to where time is stands still no one lives and no one will moon is full never seems to change just labeled mentally deranged dream the same thing every night I see our freedom in my sight no lucky doors no window spirit no things to make my brain's image scared keep him tight it makes him well he's getting better can't tell you leave me pay just leave me alone heeskaasoo ilaab qaaday misana cabsi uga abuuray ayaa mid madow ii yimid isagoo madaxa hoos u foorarinaya waxa uu igu yiri mudane waa ku diyaar gaarigii ku qaadi lahaa dabaqa hoose ee hodheelka ayaa la igeeyay waxa igu sugay gaari kale jiidan markaan gudaha u galay waxaan kula kulmay saaxiibkay waan ku naxay oo waxaan ku yiri war waa maxay sidani isna waxa uu igu hadal celiyay waa adigii muddo daba socday inaad nagu soo biirto ee codsigaaga laba jeer ay diideen Club of Rome iyo South Scottish Temple haddaba waxaa timid fursad aad isku muujin karto haddii aad daacad noqoto howlaha lagu igmanayo waxaad heli doontaa xubinimo buuxda magaalada waan ka sii baxaynaa waxaan gaadhay dhisme dhulka hoostiisa ka dhisan oo aad yaabayso qaabka loo dhisay saaxiibkay gaarigii ayuu ku hadhay anna laba nin oo xidhan dhar madow oo ay qoortu suran tahay saddex gees cas ayaa intay garbaha ay qabteen ayay ii kaxeeyeen qol madow oo iftiinka qure ee ka baxaya uu yahay shama waxaa goob madow soo fadhiya nin darajadiisa ay tahay 33 oo magaciisa uu sheegay Paul Macmillan waxa uu weydiiyay inaan ku qanacsanahay inaan ku soo biro ururka Dark Marrow anna hore ayaan ka aqbalay habeenka halkaas ayaa xaflad la igu sameeyay saddex habeen kadib anigoo sidii meeshii ugu jiray ayuu Paul ii kaxeeyay qol madow deeto ilays ayaa lagu qabtay gidaarka waxaana la tusay khariirad madow ay ku cad yihiin laba meelood waxa uu ii weydiiyay Paul labada meelood ee cad miyaad garanaysaa waxaan ku yiri mid waa Geeska Afrika ta kalena waa Bariga Dhexe Paul ayaa igu yiri waa dhulka Soomaalida ta kalena waa Shaam waxa uu ii raaciyay in khariirada la sameeyay shirkii Berlin ka dhacay 1884 waxa kale uu ii sheegay in arrin argagax igu riday Paul Macmillan waxa uu yiri shirkaas waxa fadhiyay kiisamada ka soo dhacay markuu arkay inaan fahmin ayuu ii macneeyay idinku waxa u taqaanin shaydaan
waxa uu sheegay in dhulka Soomaalida iyo Shaamba ay yihiin labada nuur ee u baahan in lala dagaalamo si qorshahayagu uu u fulo. qaybta koowaad ee sheekada saaxiibkay Axmed Yaasiin Axmed uu soo diray intaasaan kusoo afmeeraya. qaybta labaadna waan la socon doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.